Waxaan idiin wadaa sheeko yar oo cajiib ah oo aan rajeynayo saaxiibadeeda inay wax badan ka faa'iidi doonaan. Qof walba oo ku neceb ama horumarkaada ka soo horjeedo, hubaale waxaa ah wanaag haddii aad u samaysid in maalin maalmaha ka mid ah magacaada kumanaan jeer uu ku dhawaaqi doono. Nin ayaa hadda ka hor waxa uu dhahay, waxaa jira nin aan qaraabo ahayn, mar walbana hadalkayga dhibsi jiray. Anigu da'deedu waxay ahayd 40 sano ayuu dhahay, asagana da'diisu waxay ahayd 60 sano. Waxa uu sidoo kale dhahay, waxaa mar walba dhibi jirtay aragtideeda iyo habdhaqameedkayga. Sidaas oo ay tahay, mar walba oo aan salaada tukado, Allah waxaan ugu baryi jiray wax walba uu jecel yahay in Allah uu siiyo. Si aan nafteeda Allah wax ugu weydiin ayaan tiis wax ugu weydiin jiray. Sidaas oo ay tahayna mar walba waxaan jeclahay in qalbigiisa Allah uu soo celiyo ayuu dhahay. Maalin maalmaha ka mid ah anigoo aad isku soo carfiyay baraafuun caraf badan soo marsaday ayaa waxaa arkay mid saaxiibkay ah. Markaas ayuu wuxuu dhahay, aad ayaa isku soo carfisay, aad ayaan u farxay. Asagii ayaa soo booday oo hadalkayga iyo horumarkayga mar walba dhibsi jiray. Markaas ayuuna wuxuu igu dhahay inuu soo xado ayaa laga yaabaa. Sidaas markuu dhahay, ereygaas qalbigayga ayuu taabtay. Wax hadal ah oo aan u furay ma jirto. Walaalkiis ayaan ugu dacwooday, waana u sheegay sida walaalkiis uu igu sameeyay. Markaas ayuu dhahay, ka raali noqo, ninkan waa nin waalan, wuu iska hadlaa, wuuna af dheer yahay, mar walbana wuxuu dhahaa waxay afkiisa uu soo qabto. Waan iska soo tegay, gurigayga ayaan imaaday, waxaana go'aansaday inaan ammaan siiyo haddii wax walba uu igu sameeyo. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa go'aansaday in aan hadiyad u keeno si dareenkiisu uu isku beddelay si aan u arko. Hadiyad qaali ah ayaan u soo iibiyay. Hadiyaddii markaan u soo iibiyay, gurigayga ayaan keenay. Asaga ayaan u tegay, gurigoodii ayaan gargaraacay. Isla asagii ayaa iga furay. Hadallo adag ayuu markiiba igu soo galay. Ma soo galaysaa mase iska bax ayuu dhahay. Aniga oo hadalkiisa dhibsanayo waqti fara badan inaan la joogo diidan ayaa ku dhahay ayuu ninkii dhahay, arrin ayaan kuugu imaaday, waxaan jeclahay inaan i raacdo oo gurigayga ku geeyo. Markaas ayuu dhahay, okay. Waa uu soo baxay, gurigayga ayaan keenay. Hadiyaddii ayaan faraha ka saaray, waa uu furay. Kadib hadiyaddii marka uu furay, aad ayuu u farxay. Kelmaddii ugu horeysay afkayga ka soo baxday, kelmaddii ugu horeysay afkiisa ka soo baxday ayaana waxay ahayd, walaalkaygiyow, waan ku dulmiyay, raali noqo, i cafi, waad iga farxisay. Wallaahi sidaan oo dhan inaa u wanaag badan tahay, u qiimo badan tahay, u sharaf badan tahay uma haysan. I cafi ayuu dhahay. Wuxuu sidoo kale ka ballan qaaday inuusan qof dambe sidaas iyo si lamida u dulmi doonin. Nuxurka qiimaha sheekadanu ay leedahay ayaa waxay tahay, qof walba oo horumarkaada ka soo horjeedo iyo qof walba oo qof kale dulan ku haysto, haddii aad ka shaqaysid sidii qalbigiisa u soo celi lahayd, waxaa hubaal ah in maalin maalmaha ka mid ah uu ku aamini doono, kumanaan jeerna magacaada iyo xushmadaada uu ku dhawaaqi doono. Waxaa idiin soo gudbinaya anigoo ah Mahad Abuukar Maxamed Mahad Socdaal. Waxaa ka daawanaysiin barta YouTube-ka ku leeyahay Socdaal 24 iyo barteena TikTok-ga Socdaal 24. Saaxiibka sharafta badan ee daawanayo qisadan quruxda badan, waxaan rajeynayaa inaa wax badan ka faa'iiday. Adiga ahaan commentigaada waa noo muhiim. qaybta commentiga noogu reeb si saaxiibo badan ay u akhristaan fariimaha quruxda badan ee qalbigaada ka soo maaxanayo. Tani inta muuqaal kale ku kulmi doono, waa saaxiibkiin Socdaal oo idin leh nabadgelyo iyo nooli kulante oo xiiso leh.